السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ما أنت waxaan wadaa bariis aad u macaan keena waa israaceena India Bombay ayaan ka dhaceynaa alaabtan biryani waa sooskeedii way wadataa inaba caadi ma aha kaala iska arag macaan furfur caraf bariiskan biryaniga ah weliba kan shiklinka ama hilibka lagu sameeyo inaba caadi ma ahan wallaahi waa haddaa cunteena dee waad ila aragteen haddiidan cuninin dee baraweeya hadeertaan halkan waxaa noo taala alaabta ku samaysan lahayn halkan waxaa noo yaalo waa giridoorkii biryaniga ahaa xawaajigaas meesha qaladu kusoo galay ka raalli ahaada halkan waxaa noo yaalo cusbo sidoo kale halkaas waxaa noo yaalo koob iyo bar bariis bariiskeenu ma badnaan doono insha allah halkan nus kiilo basale oo aan dheerdheer usoo jaranay baa noo yaalo halkaa 10 xabo oo shiglin ahaa noo yaalo shiglinkaas insha allah diseen aad u qurux badan oo aad ka heli doontaa u jarjaran doonaa halkaa nus kiilo kale oo basal ah soo jarjartay si yaryar oo aan shiglinka suugada ugu sameeyo halkaa waxaa noo yaalo maraq digaag iyo sinjibiil bulvar sinjibiishu aad ayay bariiskan ugu fiican tahay halkaa waxaa noo yaalo waraqa la dhahaa caleentaas inta badan bariiska iyo hilibka lagu samaystaa qorfe iyo hayl ayaa noo yaalo waa madaxa bariiska iyadan aad ayuu u caraf badan tahay sidoo kale halkaas waxaa noo taala saliid cadeey waxaa noo yaalo subag iyo wax yar oo sacfaraan ah yogar baa noo yaalo oo yogarka caanaha dhanaan ah yogar oo dhanaan ah aan sokor lahayn asagana isticmaali doonaa insha allah wax biyo la yiraahdo insha allah uma isticmaali doono shiklinka haddii aan leedno alaabtan caadi maaha sadar muuqda su-aal ka dhan baa la dhahaa wixii cune biryaanina waa cuneen wixii aan cuninina hadda habarweeyaan shiklinka diseen aad u qurux badan baan u samaysanaynaa waa kaasaa qolofka shiklinka ani bataatan maba jecliba ilaahay markiis dan inay ugu qasabta ma ahane mar walba waxaan jeclahay inaan qolofka iska fiiqo qolofkii waan ka fiiqay sidoo kale lugtii dheereedna waan ka jaray macno ma sameynayso laakiin wax qurux badan oo waxa kuusoo baxayo space buu ku siinayaa digsigii inaa walaaqatid ama aad wixii yaa ku koobnaadaan adigisaa u samayso haddii aad isleedahay lugta dhanna waa u baahan tahay waa wada samaysan kartaa anaga saas ayaan usoo samaysanaynaa kaaliska arag qurux digsiga baan soo qaatay saliiddii ayaan ku shubtay sidoo kale basasha ayaan ku daraya bashasha wax yar markay biyaheedu dhaco baan insha allah waxaan sameynayaa shiklinkan aan ku darayaa bariiskan wuxuu u baahan yahay dab yar oo gaaban in aad ku karisid dab badan oo haf ah hadduu kaa galo inta badan wuu kaa gubanaya waxba hadal idinkuma mashquulinayo wasaan idiin sheegay wey Bombay ayaan joognaa haddii biryani la cunaa bariis kasta oo waddanka laga leeyahay in lagu xuso waa khasab wey biryani soomaali malahan Bombay ayaan joognaa insha allah saas ayaan sameynay shiklinkii hadeertaan saas ayaan u dhigdhiganaynaa fiir space ayuu leeyahay wuu ka qurux badan yahay marka uu wada dhammaystiran yahay dee qolofkii iyo dub maa la dhihi jiray iyo laftii uu leeyahay saas ayaan u wadeynaa asxaabe walaaq 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 dabool dab yar oo gaaban buu u baahan yahay waa ujeedaa anigu wax biya haba yaraatee maan isticmaalinin hadda waxaan ku darayaa maraq digaagii iyo sinjibiisha waxay kaa caawinaysaa digaagu si fiican ayuu kuugu bislaanaya dhaqso wuu kuu dedejinayaa macaan iyo carafna way siinaysaa hadda yogarkii baan ku darsanay yogarka biyihiisa iyo shiklinka biyaha u dhalo iyo basasha biyaha ee dhashaa ku filan uma baahnid inaa aad isticmaashid wax biyaha iskaga darin haddaad biyo iskaga dartid shiklinkan maanta dhan ma gursanayo waqti badanna wuu kaa dilayaa basashii ayaan soo aadnay basashan lafdhabar ayay u tahay bariiska biryaaniga ah aad ayayna u macaan badan tahay una caraf badan tahay basasha keligeed xataa goona loo gadaa sooma ogda iyadoo sidaa u diyaarsan waxaa la dhahaa rood basal af soomaali ka dhig inta dambe haddaa rabtid ama basasha gaduudan baa la dhahaa soosaska iyo inta badan iyadoo diyaarsan baa laga helaa dukaamada oo dartoo soo gadan kartaa haddaa saliidaas iyo waxaas yaa ka carreysa laakiin waxaa fiican iyadoo fresh ina isticmaashid oo aad gurigaaga ku samaysatay sidaas goldiga ahay noqotay kaaliska arag caraf wey madaxa bariiska biryaaniga waa basashaan markii xawaajika laga yimaado waa basashaan saas ayaan samaysanaynaa insha allah
waa noo diyaar basashiina. Hadda bariiska ayaan soo aadaynaa dabka. Biyihii xoogaa yar way noo soo kareen. Cusbo iyo saliid ayaan ku darsanay. Waraqa ama caleentii baan ku darsanay. Qorfiyo helna waan ku darsanay. bariiska looma baahna inuu xoog kaaga bislaado. bariisku waa dab labaad baa sugayo. bariisku wax yar markuu haf soo dhaho inaad ka meertid baa loo baahan yahay oo aad ku isticmaashid. shiglinka hadalka idinkuma badinayee indhihiina idin macalinahe haasaan u wadeynaa. Hadda waxaan ku daraynaa xawaajiga. xawaajiga hadda waa inaa isticmaashaa. haddaad marka hore kasoo bilowdid urka iyo dhadhanka labadaba way ka tegayaan. markaan dambe uu shiglinku bislaaday fiican tahay inaa isticmaashid. bariiska baastamiir kusoo miiro ama sidaan hadda anigu isticmaal. aniga qaada ayaan ku guraya. waxaan diidaya videoga inaan kala jarjaro. shiglinku si fiican ayuu u bislaaday waa ujeedaa. wax badanna iima saarneen. adiga 40 daqiiqa meelahaasuu ii saarnaa. dabkana waa ujeedaa dab yar oo gaaban buu ku bislaanayaa. mar walba isku day dabka inuu dab yar oo gaaban uu kuu noqdo. waxaan sameynaynaa bariiskii waa kaasaa qaadadaasa kusoo qaadnay. maba ana isdhibininba anaga. qaadadaas ayaan saas ugu gureynaa hana walaaqan. biryaaniga walaaqid ma u baahna. sidiisaas ku bislaanayaa. wax yar oo basal ahaan soo qaadanaynaa korka uga daraynaa. haddana bariiskii baan dusha kaga sii daraynaa. dabkayguna wuu noo gaaban yahay. anuniyon baan saaranaynaa. jan baan u leenahay. hadda sooskii baan samaysanaynaa. qajaar soo qaado sidaas u xoq. wax badan ma aha. qajaar iyo yogor iyo liin iyo filfil iyo cusbaan u isticmaali doonaa haddii alla idmo. yogurka kii hadda aan wax ku kariyey le waaye waa ujeedaa. jawi degan. sooskan aad u bariiska ugu macaan yahay. ka reebin haddaaba biryaani samaysanaysid sooskan. cusbo yar ayaan ku daray. sidoo kale wax yar oo wax ku daray filfil liin dhanaan iyo orgaanona way ku jirtaa. orgaano iyo filfil aan iskula daray. saas iskugu walaaq. saasuba noogu diyaarsan yahayba annaga. olive oil aan ku daray sidoo kale. wax yar annaga maanan badin maadaama bariiskeena uu koob iyo bar ahaa. shiglinka ka badan oo 10 xabo ahaa. saas ayuu sooskiina diyaar noogu yahay. waxaan sameynaynaa hadda bariiskii ayaan soo fiirinaynaa. anuniyomaa saaran waa ujeedaa. bariiska dhan wuu bisilyahay. waxaan sameynaynaa sacfaraankii iyo subagii yaraaba hadda isticmaalaynaa. sacfaraankii iyo subagii waaye wax yar kalar inuu yeeshtaan rabaa. wuu cad yahay saa ujeedaanba bariiska kor oo dhan. basashii ayaan ku daray. alaabtaas yaa la cuna lay rabtaa bis. inteeda kale oo dhammaystirantaa. asxaabta daawashadiina ku mahadsantihiin. insha allah saaxiibadiina lasii sheer gareeya si ay uga faa'iidaystaan ay u samaystaan cunooyinka noocaan oo yaa calooshu u baahan tahay oo aadka u macaan. shiglinkii fiir siduu noqdo wuu kala dhacdhacay isaga dhan. alaabtii waa taasaa. qaado ma jirto wax la yidhaahdo gacan alaabtan ku macaan tahay. biyahaaga usoo dhigo. basbaas reedan wuu ku jiraa. basbaas haddaa cuntid garidoorka ama xawaajiyada biryaaniga basbaas buu leeyahay. alaabtii way iga dhantahay. insha allah wuxuu u qalmo unbaad siin doontaan. waadna ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad ila socotaan. waxaa fahmoysaan insha allah commentiga ayaa inoo ballanay. waana mahadsantihiin mar koowaad iyo mar labaad.